City oo fursad u haysata inay laba dhibcood ku soo koobto iyada iyo Arsenal farqiga u dhaxeeya hogaanka Premier League waa hadii ay ka qaadato 3 dhibcood kulankii labaad ee Premier League kooxda Manchester United. United ma ka arsan doontaa ceebtii ka soo gaartay Etihad Stadium sanadkan horyaalka bilowgiisa. Ku soo dhawaada falanqaynta kulanka Manchester Derby waxaan isla fiiri doonaa kulankan iyo muhiimadda uu leeyahay labada kooxood, natiijada laga filan karo, shaxda labada macallin ay ku soo gali karaan iyo waxa uu kaga dhignaan doono kooxdii 3 dhibcood hesha. taariikhda kulankan iyo sheekooyin kale oo xiiso badan ayaan isla fiiri doonaa. ku soo dhawaada intaanaan falanqaynteen ugu gudagelin, fadlan muuqaalka like saar, channelkana subscribe kugu cimaamada haddaan ugu cusub tahay, nuguna soo bir si aad u hesho wararkii iyo falanqaymihii ugu dambeeyay ee kooxdaada iyo guud ahaan kubadda cagta. mahadsanid. kulankan haddaan ku hormarno muhiimadda uu labada kooxood u leeyahay, City ayaa haddii kulankan badiso 2 dhibcood ku soo koobi karta farqiga ayaga iyo u dhaxeeya Arsenal kahor inta aysan Arsenal la ciyaarin kooxda Tottenham maalinta Axadda ah. City oo ah kooxda inta ugu badan Premier League Manchester United ku garaacday gurigeeda 8 jeer ayaa guul isha ku hayda, iyadoo haddii ay kulankan badiso noqon doonto kooxda inta ugu badan ka badisay Premier League kooxda Manchester United 19 jeer, taasoo ay ka kormari doonto kooxdaha Chelsea iyo Liverpool oo ayagu haysta rikood ah inay 18 jeer ka badiyeen kooxda Red Devils. dhanka kale Manchester United ayaa guul ay ka hesho City waxay kaga dhignaan doontaa inay ka aarsan doonto ceebtii iyo wajigabixii ka soo gaaray Etihad Stadium horyaalka bilowgiisa, iyadoo sidaas si la mid ah soo gali doonta kaalinta 3aad isla markaasna dhibic kaliya ka dambeyn doonta City horyaalka kala sareyntiisa. United ayaa haddii kulankan badiso rajadeeda top 4 sanadkan iyo hamigeeda isku bedeli doona inay ka fakarto u tartamida Premier League ayagoo kaliya 6 dhibcood u jiri doona kooxda Arsenal oo horyaalka hogaaminaysa. kulankan ayaa United ugu soo aadaya iyadoo ku jirta form aan inaba caadi ahayn tan iyo markii ay Liverpool ka badisay 22 August. United ayaa ah kooxda dhibcaha ugu badan aruursatay Premier League iyadoo aruursatay 35 dhibcood, badisana 11 kulan, 15 kulan ay dheeshay horyaalka. sidaas la mid ah United ayaa badisay dhammaan 8 kulan ee ugu dambeeyay ee ciyaartay tartamadoodan, balse Manchester City oo iyadu badisay dhammaan 3 kulan ee ugu dambeeyay ee labadan kooxood kulmeen ayaa isku dayi doonta inay United ka badiso markii afaraad oo xiriir ah tan iyo 2014. macallin Erik ten Hag ayaa asaguna iska ilaali doona inuu noqdo macallinkii ugu horeeyay ee Manchester United maamula ee guuldarro dhabarka saarta 2 kulan ee derbiga ugu horeeyay oo ciyaaray. marka laga soo tago in City ay 3 kulan ee ugu dambeeyay ay ka badisay United isla markaasna ay ka dhalisay 12 gool, haddana sida ogtiin saaxiibayaal waxaan xasuusanaa in United iyadoo hadda sida ay tahay ka liidata ay haddana ku guuleysan jirtay inay City garaacdo si la yaab leh. waxaan xasuusanaa kulankii oo Pogba 2 gool dhaliyay, sidaas la mid ah waqti dheer kama soo wareegin markii oo Ole Gunnar Solskjaer macallin Pep Guardiola oo 2 kulan ee horyaalka ay wada dheeleenba uu ka badiyay. haddaba United maxaa laga filan karaa maalinta Sabtida ah inay soo bandhigto? haddaan ku hormarno United, City runtii sanadkan inkastoo Haaland iyo awoodooda iyo squadka ay haystaan imaaratu u muuqato mid aan kooxaha kale ee Premier League ka ciyaara ama kooxaha kale qaaradda Europe marka la fiirsho ay tahay kooxda ugu awooda badan, haddana runtii ma ahan koox maaragtay 100% perfect ah oo aan la garaaci karin. kulankii ugu dambeeyay oo ay xalay ay dheeleen waxaan aragnay in Southampton ay ka badisay. kulamada qaarna inkastoo ay 2 kulan ugu dambeeyay dheeleen ay Chelsea ay marna ay horyaal ku garaaceen marna ay kulankii karo FA Cup ku garaaceen, haddana runtii City sanadkan waxay u muuqataa in maaragtay mararka qaar ay ku jirto transition period ama xilli kala wareeg ay ku jirto. sidaan ognahay macallin Pep Guardiola sanadihii u dambeeyay City wuxuu u diyaarinay ama u dhisay inay ahayd koox maaragtay striker la'aan dheesha, haddana maaragtay aan la iska difaaci karin oo ciyaaryahanada weerarka hore dhilo dhammaantood ay gool dhali jireen, runtiina ahayd koox aad u adag in la garaaco. laakiin sanadkan sidii Haaland kooxda ugu soo biiray macallin Pep Guardiola waxaad moodaa inuu taktikadiisa iyo kooxdiisa u ciyaarto oo wax badan ka bedelay, oo kooxdii goolasha wada dhali jirtay oo fursadaha wada abuuri jirtay ay u muuqato koox hal nin ku tiirsan oo Haaland maaragtay goolal ku raadinaysa, isla markaasna kooxada inta kale ka soo hartaa ay ka ciyaaraan xeelada ganax banaankeeda. marka transition period ay City ku jirtaa sanadkan sida ka muuqata bandhigeedu maaragtay sanadkii hore aad uga liitaa, horyaalka kaalinta labaad ku jirtaa 16 gool ayaa laga dhaliyay 17 kulan ee horyaalka dheeshay. sidaas la mid ah 2 kulan ayaa maaragtay laga badiyay already. sanadkii horena waxaan xasuusanaa in 3 kulan horyaalka oo dhan kaliya laga badiyay, sanadkan horyaalkii half time gaarin xitaa ayaa 2 kulan already laga badiyay. marka City sanadkan waa la garaaci karaa. waxaan ognahay inay Brentford garaacday, sidaas la mid ah kulankii hadda ugu dambeeyay xal dheeleen
Southampton ayaa ka badisay inkastoo macallin Pep Guardiola oo koox maaragtay aan aad u adkeen oo shaxda kusoo bilaabay haddana Haaland iyo De Bruyne iyo ciyaaryahanada waaweyn oo dhan ayaa halftime-kii dambe soo geliyay runtiina waxaa ka muuqatay jahawareer iyo in maaragtay aysan fursado bara abuurin kulankan City ciyaarta oo dhan shooting target ma aysan sameyn marka waxa la yaab leh ay ahayd waxaadna moodaa in maaragtay kulamada qaar ay City hadda ay tahay koox la saadaalin karo qaabka u dheelayso kooxaha qaarna ay isku diyaarinayaan inay maaragtay qaabka tactical yaqaan ay kala hor imaanayaan halka sanadihii hore ay aad u adkeed in City iyo waxay sameyn doonto la saadaaliyo isla markaasna tactical loo diyaarsado marka United kulankan fursad fiican ayay haysataa Rashford form caadi inuu ku jira sidoo kale waxaan ognahay in kulankii hore wixii dhacay ay United u baahan tahay inay ka falceliso macna Erik ten Hagna kooxda runtii sanadkan waxaad moodaa inuu jaha wanaagsan u wado kulankaana waa qiimeyn weyn oo uu yahay in horumarkiisu uu yahay wax muuqdo oo la taaban karo iyo in uu yahay maaragtay kulamo oo kooxa yaryar la dheeleen oo natiijada iska fudud ay ahayd ayaa lagu kala ogaa doonaa haddaan fiirino shaxda ay labada macallin kusoo bilaaban karaan United haddii aysan dhaawacay jirin Martinez, Shaw, Varane iyo Dalot oo isagana maaragtay ciyaartii ay dheeleen Liga Cup-ka dhaawac looga saaray oo la rajeynayo inuu dhaawaciisu wax weyn noqon haddii uu soo laabto backfogeeda saas ayuu noqon doonaa Casemiro iyo Eriksen qadka dhexe iyo Fred ayaa la rajeynaya inuu kulanka kusoo bilowdo Fred oo runtii sanadkan aan kulamo badan ciyaarin kadib kusoo biristii kooxda ee Casemiro ayaa kulankan u muuqda inuu yahay ciyaaryahan ku habboon waxaan ognahay in kulankii hore ee labadan kooxood ay dheeleen United 6 iyo 3 looga badiyay qadka dhexe uu dheelay Eriksen oo runtii uu ku dhaxlumay oo waxa uu qabto oo qowaayay marka difaaca marka la fiirsho dhanka difaaca laga fiirsho kulankan Fred ayaa ku habboon ayaa la dhihi karaa oo macalinka waxa la rajeynaa inuu Fred iyo Casemiro iyo Eriksen kusoo bilaabo isla markaasna ama Bruno Fernandes ayaa la dhihi karaa Eriksen boskiisa garbaha Anthony Rashford oo form fiican ku jirsan hore soo sheegnay iyo Martial ayaa la rajeynayaa inay kusoo bilowdaan City ayadana haddii aysan dhaawacay jirin Cancelo, Laporte ama Eke ama ninka la yiraahdo Stones ayaa qadka dhexe kusoo bilaabo doona iyo Kyle Walker difaaca aan dhexe qadka dhexena Rodri, Bernardo Silva iyo Kevin De Bruyne halka garbahana Phil Foden iyo Haaland iyo waliba Mahrez oo sanadkan asaguna form fiican ku jira la rajeynaya inay kusoo bilowdaan natiijada iyo saadaasha kulankan haddaan fiirino mar walba saadaashu City ayay la jirtaa maadaama ay iyadu tahay kooxda awoodda badan marka la fiirsho tiro ahaan iyo tay ahaan laakiin United ayaa saan hore soo sheegnaba iyaduna awood u leh inay kulankan natiijo soo bandhigto positive ah runtiina waa natiijo muhiim u ah macallin Erik ten Hag iyo projectigiisa iyo maaragtay horumarka uu kooxda ku sameeyay lagu qiimeyn doono meesha uu marayo maxaad filaysaa inay natiijada kulankan noqon doonto haddii aad tahay taageere labada kooxood saadaashaada qaybta commentiga nagula wadaag falanqaynteedina intaas aan kusoo koobayaa haddaad muuqaalkan ka heshay fadlan like saar channelkana subscribe kugu cimaamad naguna soo biir si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay kooxdaada iyo guud ahaan kubadda cagta mahadsanid